السلام عليكم dhamaantiin saaxiibada sharafta badan. Filimku waxa uu ka bilaabmayaa gaari container ah oo ka sii baxaya aaga kontoni koowaad oo ah meel xadidan oo caan ah. Gaariga xamuulka ah ayaa waxaa galbinaya ciidamada inta uu socdo. Wadahadalka dhex maray askartan ayaa muujinaya inaysan waxba kala socon waxa ku jira konteenarada ay wadaan. Marka xigta, lamaane mar dhow isguursaday ayaa u dabaaldegaya maalintii ugu horeysay ee guurkooda. Naagtii ayaa la ciyaartay, maadaama uu ninku aad ugu mashquulsan yahay hawlaheeda, ma arko in baabuurkii uu watay uu ka baxay seedkiisii. Taasi waxay keentay in baabuurka lamaanaha uu ku dhaco baabuurkii siday konteenarkii aan la aqoon. Taliyaha koloniyada gaadiidka xamuulka ayaa laga soo wacay xarunta, waxaana lagu amray inay ka fogaadaan konteenarka. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aanay maqlin waxa xaruntu ay sheegayso, waxa konteenarka ka soo baxay xayawaan aan la garanayn. Bahalkii la yaabka lahaa ayaa waxaa la ogaaday inuu yahay zombie, wuxuuna bilaabay inuu weeraro askartii meesha joogtay. Masiibada kadib, zombiska iyo askarta cudurka qabtay ayaa qorsheynaya inay weeraraan Las Vegas. Hal habeen kaliya magaalada Las Vegas oo ay ku nool yihiin malaayiin qof ayaa loo bedelay magaalo zombies ah, sababtoo ah fayraska zombiga oo si degdeg ah u fiday. Dadaalada dowladda ee lagu ciribtirayo waa laga adkaaday. Masiibada ayaa ugu dambeyntii ku qasbaysa mas'uuliyiinta inay abuuraan derbi container ah oo ku wareegsan dhammaan magaalada Las Vegas oo ku xanibaya zombiska gudaha. dhowr bilood kadib, Scott Ward oo ah askari hore ayaa ogaaday in madaxweynuhu uu doonayo inuu magaalada ku garaaco hub nuclear oo hooseeya. Mr. Tanaka oo ah mulkiilaha kalaab ayaa yimid dukaankiisa. Wuxuu Scott u xilsaaray inuu ka soo qaado 200 oo milyan oo ku jira dhismaha kalaab ku yaala magaalada halista ah ee Las Vegas. Mr. Tanaka wuxuu si gaar ah u farayaa Scott inuu abaabulo koox soo dhamaystirta shaqada loo diray. Kooxdana waxay ka heli doonaan $50 milyan oo dollar lacagta ay keenaan. Gudaha xarunta karantiilka ee gidaarka konteenarka, Gita, qof dumar ah ayaa weydiisatay inanta Scott, Kate, inay ilaaliso carruurteeda. Gita waxay sheegtay inay aadi doonto gudaha magaalada dadka dhintay si ay u soo hesho hantida. Waxay doonaysaa inay gasho magaalada halista ah iyadoo ay caawinayso qof deegaanka ah, Lily, oo ah haweeney ilaalisa xuduudka. Dhanka kale, Scott wuxuu dib u xusuusanayaa dhalinyarnimadiisii markii lagu qasbay inuu dilo xaaskiisa, sababtoo ah waxay isu rogtay zombie. Ugu dambeyntii wuu aqbalay hawshii uu hore u magacaabay Mr. Tanaka. Dhowaan ayuu abaabulay inuu ururiyo koox dad ah oo uu yaqaano, oo ay ku jiraan Maria iyo Venda. Kuwani waa ciidamo hore oo caan ah, waxaana la siinayaa abaalmarin dhan $15 milyan oo dollar midkiiba, oo uu ku jiro Scott laftiisa. Inta soo hartay waa Beatrice, duuliyaha helikabtar ah oo helaya $2 milyan, iyo Gasman, ugaarsadaha zombiska ahna YouTuber, wuxuu heli doonaa $500,000 oo dollar. Dita oo ah hacker ayaa isna heli doona $250,000 oo abaalmarin ah. Waxay isla markiiba diyaarsanayaan hubka ay jecel yihiin, kaas oo ay u isticmaali doonaan inay kula dagaalamaan zombiska. Gasman wuxuu keenayaa saaxiibadiisa Damon iyo Chambers si ay ugu biiraan howlgalka maalinta xigta. Mr. Tanaka ayaa sii wada inuu ka hadlo qaabka uu u wajahayo howlgalka ay qaadi doonaan. Hadafka ayaa ah inay ka gudbaan derbiga xuduudka, kadibna ay dhex maraan dhammaan zombiska ilaa ay ka gaaraan dhismaha ay ku jirto khasnada lacagta. Beatrice ayaa markaa aadi doona saqafka sare ee dhismaha si uu u diyaariyo diyaaradda marka ay soo galaan dhismaha, halka kuwa kale ay raacayaan Dita si ammaan ah oo ay ula soo baxayaan dhammaan lacagta. Dhammaantood waxay aadi doonaan dhismaha Beatrice ee lacagta markay wax walba dhammeeyaan. Sidoo kale waxaa gelbin doona mid ka mid ah ragga Tanaka, kaasoo isha ku hayn doona si uu u hubiyo inaysan lacagta xadin. Waxay haystaan hal maalin si ay u gutaan hawsha ka hor intaysan dowladdu ku qarxin hubka nuclear-ka dhammaan magaalada Las Vegas. Scott wuxuu weydiistay Kate inay ka caawiso sidii uu uga gudbi lahaa xadka. Wuxuu u ballan qaaday $15 milyan oo dollar si ay ugu bixiso waxbarashada carruurta ee xerada. Run ahaantii iyadu waa isxilqaami ku jirta xerada karantiilka, waxaana laga yaabaa inay si ula kac ah ugu ogolaato dadka inay soo galaan magaalo madaxda nolol la'aanta ah. Waxay fuuleen baska maalintii xigtay, waxayna bilaabeen socdaalkoodii xerada. Markay yimaadeen, waxaa soo dhoweeyey Lily oo u qaadi doonta Las Vegas. Kate waxay si lama filaan ah u ogaatay in Gita oo ah qofka ku soo dhoweeyey magaalada ay mar hore ka tagtay xerada. Way xanaaqday oo waxay wejiga kaga dhufatay feer. Waxaa soo baxday in Lily aysan wax fikrad ah ka haysan in Gita ay ilmo leedahay, taasoo keentay inay u ogolaato Gita inay gasho Las Vegas. natiijo ahaan Kate waxay codsatay inay raacdo Scott si ay u raadiso Gita. Scott markii hore wuu diiday codsigeedii, balse waxaa lagu qasbay inuu ogolaado inantiisa inay ku biirto howlgalka kadib markii Kate ugu hanjabtay inay kaligeed safri doonto. Kaliya ma aha Kate, laakiin Lily waxay sidoo kale ka codsatay inuu ku soo daro xubin kale, Bad, sababtoo ah waxay u baahan tahay caawimaadda Bad gudaha magaalada. Kadibna waxay bilaabeen hawshooda iyagoo galaya magaalada zombiska. Markii ay magaalada soo galeen ayaa waxay si lama filaan ah u maqleen guux aad u weyn oo ku soo wajahan, kaasoo isu bedelay guux shabeel zombie ah. markii hore way argagaxeen, laakiin waxaa soo baxday in shabeelku uu halka marayo oo aanu dan ka lahayn inuu iyaga weeraro.
intii ay dhacdadani socotay Lily waxay u soo dhawaatay Bart waxayna isku dayday inay hesho qorigiisa. Marka Bart uu gacanta u geliyo qorigiisa, Lily ayaa lugta ka toogatay iyadoo sharaxaysa inay u baahan yihiin inay wax u huraan kuwa nool. Maria waxay aaminsan tahay in Lily ay khiyaamaysay dhammaantood, laakiin sida laga soo xigtay Lily waxay sidan u samaysay sababtoo ah haddii aysan wax quurin waxay la macaamili doonaan zombiska alpha kuwaasoo aad uga caqli badan zombiska caadiga ah. Intaa waxaa dheer, Lily waxay u isticmaashay Bart dhibane ahaan sababtoo ah wuxuu si qaldan ula dhaqmi jiray haweenka xerada karantiilka. Markay taas maqleen, kooxda inteeda kale waxay ku heshiiyeen inay Bart halkan uga tagaan si aanay u soo weerarin zombiska alpha markay magaalada dhex marayaan. Waxyar kadib, boqoradii zombiska iyo mid ka mid ah ilaaladeeda ayaa yimid oo kaxaystay Bart. Bart wuxuu arkay inay ku hareeraysan yihiin zombis alpha ah markii uu soo gaaray dhismaha, ilaa uu ka soo muuqdo mid ka mid ah boqorada zombiska oo u bedelay zombis alpha ah. Waa inay dhex maraan dhisme kadib safar dheer si ay u gaaraan dhismaha ay u socdaan. Waxaa jiro tiro zombis ah oo ku dhex jira oo hurday muddo dheer. Ma haystaan wax kale oo ka ahayn inay soo dhex maraan tiro badan oo zombis ah sababtoo ah ma jirto waddo kale. Scott wuxuu ku hagayaa inay dhex maraan kuwa aan dhimanin, taasoo tusinaysa waddo sahlan. Laakiin ninka Tanaka, Martini, ayaa ku tuuray jidka ulihii iftiinka, taasoo ku khasabtay Jambres oo daba socotay inay u socoto jihada ka soo horjeeda. Nasiib darose, iyadoo isku dayaysa inay ka baxdo aagga zombi ayay si lama filaan ugu dhacday mid ka mid ah, taasoo keentay in zombisyadu ay toosaan oo ay raadiyaan. Jambres waxay isku dayday inay la dagaalanto si ay u baxsato. Nasiib daro, Martin ayaa ka xiray albaabka isagoo ku celinaya Jambres gudaha. Gazman oo goobjoog ka ahaa weerarka zombi ayaa wax ka weydiiyey halka ay Jambres ku sugan tahay. Martin wuxuu sheegay inaanu wax fikrad ah ka haysan waxa ku dhacay. Daaqada ayay ka soo baxaysaa waqti aan dheerayn, laakiin maadaama ay hareereeyeen zombies, waxay ku amartay Gazman inuu si degdeg ah u toogto. Gazman ayaa sidoo kale lagu qasbay inuu toogto gaaska ay sidato Jambres. Markay yimaadaan, Scott wuxuu farayaa qof walba inuu dhammaystiro mas'uuliyadaha loo xilsaaray, iyadoo Petrus iyo Maria ay aadeen saqafka sare ee dhismaha si ay u diyaariyaan helikobtarka. Martin iyo Lily ayaa mas'uul ka ah ilaalinta nidaamka bannaanka dhismaha. Venda, Dita iyo Gazman ayaa loo xilsaaray inay furaan khasnadda, halka Scott iyo Kate ay u xilsaaran yihiin inay daaraan matoorka danabka. Dhammaantood waxay isla markiiba u ambabaxeen si ay u dhammaystiraan waajibaadkooda. Lily iyo Martin oo bannaanka waardiye ka ah ayaa si lama filaan ah ugu yeeray boqorada zombi si uu Martin u qabto. Markii ilaalada boqorada zombi uu arkay weerarka, wuxuu isku dayay inuu weeraro Martin, laakiin ugu dambeyntii Lily ayaa awood u yeelatay inay toogato oo ay disho ilaalada zombi. Waxaa soo baxday in Lily ay tan u samaysay si ay u caawiso Martin oo hore ugu sheegay inuu u baahan yahay dhiigga boqorada zombi si uu cilmi baaris ugu sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa in Martin uu been u sheegay Lily, sababtoo ah hadafkiisa dhabta ah waa inuu qaato madaxa boqorada zombiga si ay u dhisaan ciidan zombies ah oo la xakamayn karo. Markay Lily ogaatay arrintan, waxay isku dayday inay uga digto Martin in haddii boqorka zombiga uu helo jirka boqorada, inuu balankii hore uu buray oo aan waxba ka jirin. Markii Scott iyo Kate ay ku guulaysteen inay shidaan matoorka, Petrus iyo Maria waxay u yaaceen xagga sare ee saqafka, halka Venda iyo kuwa kale ay raadinayaan qasnada. Kadib markay yimaadaan qolka qasnada, saddexdooda waxaa hareereeyay zombies aan tiro lahayn ilaa ay ugu dambeyntii awoodaan inay nadiifiyaan dhammaan dhismaha. Kadib markii ay albaabka qarxiyeen, saddexdii waxay isku dayeen inay helaan dhowr zombies si ay u adeegsadaan dabin ahaan si ay u dejiyaan dhammaan dabinada halista ah. Kadib markii uu si guul leh u furfuray dabinada, Dita wuxuu bilaabay inuu isticmaalo khibraddiisa si uu u furo khasnadda. Dhanka kale, Petrus ayaa u muuqda inay ku adag tahay inuu istaaro helikobtarta, taasoo ka waxyeelowday dhowr meelood. Intaa waxaa dheer, iyadoo Petrus uu hagaajinayo mashiinka ayaa helikobtarku gubanaya. Intay daawanayaan warka ayaa waxaa soo baxay in madaxweynaha uu bedelay taariikhda xilliga uu qarax u dhici lahaa oo uu hal maalin ka jaray. Tani waxay cabsi gelinaysaa dhammaantood, sababtoo ah waxay haystaan 1 saac iyo bar oo keliya ka hor intaan magaalada la qarxin. Scott iyo kuwa kale waxay aadayaan qolka khasnadda kadib markay maqlaan warka, laakiin imaatinkooda ayaa mashquuliyey Dita, kaasoo furayay khasnadda, waana inuu dib u soo bilaabaa mar kale. Intay sugayaan in Dita uu furo khasnadda, ayay bilaabeen inay xisaabiyaan lacagtii ay ka heleen dhismaha oo ay si siman ugu qaybinayaan kooxda inta ka hadhay. Muddo kadib, Dita wuxuu aakhirka awood u yeeshay inuu furo albaabka khasnadda. Markay arkeen lacagta faraha badan ee khasnadda ku jirta, dhammaantood aad bay u farxeen. Scott ayaa markaa ku amray Venda iyo kuwa kale inay si degdeg ah lacagta ugu guraan boorsada, sababtoo ah waxay haystaan 1 saac oo keliya. Sidoo kale ma oga in Kate ay mar hore ka tagtay oo ay keligeed raadinayso Gita. Boqorka zombiska dhanka kale wuxuu helay
meydka boqoradda wuxuuna ku celinayaa saldhigooda. Boqorkii markuu ogaaday in canugii boqoradda uu uurka ku dhintay wuu ka carooday wuxuuna amray dhammaan ciidankiisa inay weeraraan dhismaha ay Scott iyo kuwa kale ka fulinayaan howlgalkooda. Markuu Scott ogaado in Kate ay baxday say u raadiso Gita wuxuu damcay inuu raaco, laakiin markay wiishka soo geli rabeen zombies ayaa ka soo dhacay albaabka oo dilay Maria. Marka Scott uu ka adkaado tiro yar oo zombies ah isla markiiba waxay raadinayaan waddo ay uga baxaan meesha. Si kastaba ha ahaatee Martin si fudud ayuu u xiray dhammaantood oo wuu baxay. Markay garwaaqsadeen waxa socda waxay isku dayeen inay baxsadaan iyagoo gidaarka ku daloolinaya mashiin. Si kastaba ha noqotee marka Venda iyo Dita ay baabiyaan zombieska boqorka ayaa imanaya oo weeraraya. Waxay isku dayeen inay madax ka toogtaan boqorka laakiin way awoodi waayeen koofiyadiisa birta ah awgeed. Marka boqorka uu ku dhow yahay inuu qaniino gacanta Venda, Dita ayaa soo muuqanaya oo weeraraya. Naftiisa ayuu u huray si uu u badbaadiyo Venda isagoo gelinaya gudaha khasnadda. Martin ayaa isku dayaya inuu qaato madaxa boqoradda markii uu rabay inuu baxo, laakiin waxaa soo baxday in Lily ay mar hore madaxii boqoradda ku bedeshay mashiinka lacagta. Muddo aan dheereen kadib shabeelkii aan dhiman ee dibadda ka ilaalinayay ayaa si lama filaan ah u soo weeraray. Kadib markii Scott, Lily iyo Guzman ay ka soo baxeen qolka khasnadda waxay ku talagaleen inay si toos ah u abaaraan dhismaha Beatrice. Si kastaba ha noqotee maadaama zombiesyadu ay aad isugu dhow yihiin waxay ku qasban yihiin in marka hore la dagaalamaan zombieska. Guzman waxaa qaniinaya mid ka mid ah zombieska, sidaas darteed wuu isdilay isagoo qarxiyay dhammaan bamgacmeedyadii uu haystay, taasoo u ogolaanaysa Scott iyo Lily inay ka cararaan weerarada zombieska. Markay labadooduba yimaadeen saqafka sare waxay ogaadeen in boqorkii uu soo daba socday. Lily waxay soo saaraysaa madaxa boqoradda si ay ugu hanjabto boqorka. Waxay faraysaa Scott inuu fuulo helikobtarka sida ugu dhaqsaha badan. Boqorka ayaa warankiisa ku mudaya Lily. Lily ayaa markii dambe lagu khasbay inay iska sii dayso madaxa boqoradda kaasoo ka soo dhacay dhismaha. Dhanka kale Kate waxay awood u yeelatay inay hesho Gita taasoo lagu haystay boqorka xaruntiisa, laakiin markay ku dhowaadaan inay baxsadaan waxaa soo baxay zombies la yiraahdo Bat oo mid ka mid ah qaniinay. Kadib markii Kate uu dilo zombie Bat, boqorka ayaa la soo baxay dhowr ka mid ah ciidamadiisa wuxuuna weeraray Kate iyo Gita. Kate iyo Gita waxay la dagaalameen bahalada halista ah ilaa ay ugu dambeyntii ka adkaadaan dhammaantood. Hadda boqorka oo aan weli dhiman ayaa haray. Scott ayaa mar kale soo muuqday oo dab qabadsiiyey ka hor inta uusan soo weerarin iyaga. Markay yimaadaan saqafka sare waxay u malaynayaan in Beatrice uu tegay, laakiin nasiib wanaag Beatrice ayaa soo noqday si uu u badbaadiyo saddexdooda. Si kastaba ha ahaatee ma oga in boqorka uu weli nool yahay oo uu ku soo boodayaa helikobtarka. Scott wuxuu isku dayay inuu la dagaalamo zombieska laakiin dhowr jeer ayaa la qaniinay ka hor inta uusan madaxa ka toogan boqorka. Bam nuclear ah ayaa markaa ka soo iftiimaya cirka oo dhan. Markay bambadu qaraxdo xoogga qaraxa ayaa ruuxaya diyaaradda helikobtarka. Waxay galeen shil musiibo ah. Markay Kate soo toostay waxay ogaatay in Beatrice iyo Gita ay dhinteen. Kaliya Scott iyo Kate ayaa ka badbaaday shilka. Maadaama Scott uu hore u qaniinay boqorka zombie, Kate waxay ku qasban tahay inay madaxa ka toogato markuu muujiyo calaamadaha inuu noqday zombie. Kadib markii qaraxa nuclearka uu burburiyay dhismihii oo dhan, waxaa la ogaaday in Venda uu weli nool yahay oo uu ku guuleystay inuu si uun uga soo baxsaday khasnadda. Wuxuu soo qaadanayaa baabuur socod dheer kadib, wuxuuna qorsheynayaa inuu u safro dibadda isagoo wata boorsooyin badan oo ay ku jiraan lacag kaash ah oo 100 milyan ah. Venda oo diyaaradda saaran ayaa dawaqsamaya wuxuuna isku dayayaa inuu isticmaalo qolka musqusha. Kadib wuxuu ogaaday inuu qaniinay boqorka zombie. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.